weli isla wararka la xiriira talaalka ayaynu ku jirnay helitaanka talaalka COVID-19 ayaa abuuraysa rajo iyo yidadiilo ku aadan in laga adkaan karo xanuunka COVID-19 ee isagu 10kii bilood ee ugu dambeysay dunida naafeeyay. haddaba talaalkani muxuu ka samaysan yahay? ma jirtaa dhibaato kale oo uu gaarsiin karo jirka aadanaha? Soomaalida Mareykankuse diyaar ma u yihiin inay qaataan? jawaabaha su'aalahaasi waxa ay ku jiraan warbixintan uu Minnesota nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade. talaalka cudurka COVID-19 ee toddobaadkan ka bilowday dalka Ingiriiska lana filayo inuu dhawaan ka hirgalo Mareykanka iyo meelo kale ayaa bulshada qaarkeed walaac ka muujinayaan suurtagalnimada inuu xal u noqon karo cudurka COVID-19 isla markaana uu cudurka cirib tiri karo. talaalkan wuxuu ka samaysan yahay wax la yiraahdo waxa la sameeyaa qofka waxa la siinayaa mRNA oo ah u taagan fariin gudbiyaha hidasidayaasha midka fariin gudbiyaha la yiraahdo. marka jirka ayaa lagu qofka markii la siiyo gacanta ayaa laga siiyaa muruqa. markaasi muruqii ayaa wuxuu noqonayaa warshad soo saarta qaybo kamid ah viruska. sidaa daraadeed markuu jirku soo saaro jirkii baa markuu wuxuu u arkayaa qaybta waxaas uu soo saaray unugyada ay soo saareen inuu yahay viruskii oo kale. markaasuu la dagaalamayaa. markuu la dagaalamo sidaas ayuu markaa u tababarnaanayaa inuu maaragtay hadduu la kulmo viruska uu iska difaaco. Dr. Maxamed Xaaji ayaa sheegay in baaritaano badan iyo tijaabooyin talaalka lagu sameeyay ay keentay in la aamino in talaalku uu yahay dawada kaliya ee loo heli karo cudurka COVID-19. talaalkan waxaa la geliyay waqti fara badan sidii loo soo saari lahaa. waxaa lagu tijaabiyey dad fara badan si loo ogaado inuu safe yahay iyo faa'iidada uu leeyahay. waxaa la ogaaday boqolkiiba in ka badan 90 in dadkii ay maaragtay aad uga faa'iideysanayaan oo jirkooda uu soo saaray difaac oo jirkooda loo carbiyay inuu iska difaaco COVID-19. marka aad baa maaragtay faa'iidooyin badan buu leeyahay. wax dhibaato ahna laguma arag dadkii lagu muday. difaac jirkoodana aad buu u wanaagsan yahay. marka dawada maaragtay talaalkan waa mid safe ah oo wax dhibaato aan keenin. cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii uu dunida ka dilaacay ayaa waxa u dhintay dad kor u dhaafaya 1,500,000 oo qof iyadoo maalin kastana ay tirada dhimashadu cirka isku sii shareerayso. inkastoo talaalkan soo baxay dunida laga soo dhaweynayo haddana dhinaca kale waxaa dad badan ay cabsi ka muujinayaan in talaalka laftiisu uu keeni karo waxa loo yaqaano side effects oo ah in talaalka lagu xanuunsan karo ama uu qofka u horseedi karo xanuuno kale. side effectska waxaa lagu arko talaalada kale inta badan. marka ugu horeysa meesha lagu muday ama lagu duray waxaa la dareemaya xanuun uu jiro xanuun yar oo qofka maaragtay muruq ay yara xanuunaya oo maaragtay taasi waa midda kalena marka labaad ee qofka lagu mudo maadaama difaaci jirka aad loo cariyay oo loo tababaray waxaa laga yaabaa in maaragtay jirku xoog ula dagaalamo viruska oo aad u soo saaro waxaaba markaas qofka keena inuu xumad yeesho ama daal ama maaragtay arrimahaas oo kale. laakiin wax maaragtay side effects ama waxaaba maaragtay dhibaatooyin dhinaca ah oo uu keeni karo caafimaad uu keeni karo ma jiro. Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka walwalka ka muujinaya talaalka cudurka COVID-19 iyadoo Soomaalida Minnesota ay caruurtoodu ay qabaan xanuunka autism-ka qaarkood ay rumaysan yihiin in talaal uu xanuunkaasi ku riday ubadkooda walow aysan jirin wax caddaynaya haddana waa cabsi jirta oo dad badan ay qabaan. Dr. Maxamed Xaaji ayaa se Soomaalida dareenka qaba ugu laab qaboojiyay in cudurro badan oo dunida ka dilaacay talaal oo kaliya lagu ciribtiray. cudurro badan oo adduunka la ciribtiray ayaa jira talaalka dartii sababtii. waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo dabaysha oo dadka naafa ka dhigi jira caruurta. waxaa ka mid ah cudurkan la yiraahdo furuqa oo maanta adduunka laga xakameeyo laga ciribtiray. marka talaalku sidiisaba waxaa weeye waa hab lagula dagaalamo cudurrada. marka waxaa weeye Soomaalida waxaa weeye inaan taariikhda eegnaa waa dadaal loogu jiro cudurkan sida kaliya lagu xakameyn karo ama lagu maaragtay baabi'in karo waxaa weeye in maaragtay talaalada la qaato. Dr. Maxamed Xaaji ayaa ugu baaqay Soomaalidu in ay eebe talada saartaan dhaqaatiirtana ku kalsoonaadaan. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.